waxaan joogaa saldhigga booliiska ee degmada Galdogob goor dhaweed halka waxa yimid ciidamo gaari baroona wata iyo saraakiil kale oo ka tirsan hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka Puntland iyo madax kale oo ka tirsan taliska qaybta booliiska ee gobolka Mudug mudane salaad oo hal xidigla ah Salaad Cabdi Gombe xidigla Salaad Cabdi Gombe ka tirsan ciidamada booliiska ee degmada Galdogob isla markaana ciidanka howlgaliya intii uu taliye Cabdixamiid geeriyooday oo saldhigga isagu ka shaqaysiinayay iyo rag kale oo gacan ka helayay oo booliiska ka tirsan iyo ciidanka dawladda hoose salaad waxaad ka warantaa halkii aad ku geeyeen maxaa dhacay bismillaahir rahmaanir rahiim saaka anaga waxaan ku yiri xalay wafti baa idii imaanay waftigaas oo kii la soo magacaabay iyo wafti la socda madaxtooyada Puntland garow lagu soo magacaabay waa diyaar garownay waan sugaynay sidaan u sugaynay wajiga sugaynay waji ka bedelan gaari nimo wataan oo nin sargaal oo CID wato baa noo yimid iyo ciidankiis haddaan warwareysano iswareysanayna wixii afilaynay wixii madaxii afilaynay way noqon weyda madax kale la baxo waanu iswareysanay ninkii waxaan idin qaabkee ku socoteen ma taliyihii saldhigga oo la dilay baaritaankiisa ilaa waa CID miyaa u socoteen oo Bursaalax iyo Gaalkacyo gobolka Galbeedka ka soo bilowdo baaritaanka ninkii meesha lagu dilana waa taqaaniin cidda dishana waa taqaaniin miyaa la haydeen oo baaritaankii baa idin ka khaldamay mise waxa la haydeen waa loo taxsiyeynayay adigu way saf garan weynay nimankii dhalinyarada ahaa oo la soo magacaabay oo la degmada loo soo magacaabayna way la socdeen anagu ciidan baan ahayn gudoomiyihii degmada sugaynay taliyihii qaybta sugaynay taliyihii booliska sugaynay goortaan aragnay madaxa sugaynay madax khaldan CID baan loo soo diray ciidan wata waan isfahmi weynay waxaan nidhi meesha saldhig weeyaan oo cid aan sugaynay baa sugaynaa wali sugaynaa Puntland baa sugaynaa taliyihii qaybta sugaynaa taliyihii booliska sugaynaa gudoomiyihii degmada sugaynaa baartaan halkaan taliyaha iyagii saldhigga oo la dilay Galdogob laga baaritaan halkaan kama lahayn waxa weeye cidii dishay haddana naga baaritaan cidii dishay waa idinkaan ku nadaafa ku isku dhicina ma rabaan direes ciidan waxa idinku taxkiilinayna direeska ciidanka qabtaan nadaafa ku waan iska soo caydin ayaga iyo nimankii dhalinyarada la socday waan soo dhaafay waayo Cabdi Feelati dawladda Puntland direes ma ka heshaan intaas waa inta labaad dawladda Puntland waxaan kale anigu ninkii shaqada sii waday baan taliyay markuu dhintay oo si socodsiinay ku sameeyay baan maxaabiis badan baa qabtaa dhayay shaqada magaalada roonda haday tahay oo ka wan waxa weeye Puntland mushaarka ma helo ciidamada la midna taas raashinka ma helo direeska ma helo qalabka ma helo way bixisaa qalab inta hadda dambe aan sheegay way bixisaa bakow waxa dhacday qalab Puntland bixisay in anaga ku soo weeraray saldhigga lagu weeraray isbitaalka lagu weeraray aniga lagu dhaawacay laftigeyga xabadda shika waxa iga taalaa lugta kow dawladii aan ka tirsanayn oo qalabka bixisay qalabka cidii wadatana tilaabo kama ay qaadin askartayadii dhaawacantana waxa weeye walba jeebkiis isaga iska daweeyay ilaahayna waa daweeyay waxa weeye wax daryeel ay u sameysay malaha hadda Puntland afkaan ka nahay waadaan noqono baa waftiyada isqaabili doona inta ka horeysa anagu waxaan qabiil degmada degan gabigeed ma naqaanba bismillaahir rahmaanir rahiim anigu waxaan ka hadlayaa inta dhibaato ay noo geysatay Puntland lambarka koowaad waa markii saldhigga la soo weeraray oo qoryihii ay baxsay lagu soo weeraray